Bismillah, Assalamu alaikum saaxiibayaal. Magacaygu waa Cabdiraxiim. Kusoo dhawaada falanqaynta lacagta JPB JPY. Saaxiibayaal, waxaan isku dayi doonaa in aynu faaqidno ama falanqayno lacagta loo yaqaano JPB JPY, fursadda aynu ka sugayno iyo halka aynu rajeynayno in ay aado muddooyinka soo aadan. Sida ogtiin saaxiibayaal, dhowr bilood ugu dambeeyay suuqu waxa uu ku jiray khalkhal. taa macnaheedu waxa weeyaan suuq ma u fadhiyin, mana ixtiraamin wax qawaacid ah ama istiraatiijiyadooda. haddaynu hore u gallo saaxiibayaal, lacagtani waa JPB JPY. sidaan hore u sheegay analysekeena waxaynu mar walba kasoo bilaabeynaa time frameka weyn, monthly, weekly, daily, 4 hour ilaa aynu kasoo gaarino 1 hour ama 15 minutes. sidaan u jeedno saaxiibayaal, lacagta JPB JPY waxa ay samaysay dhowr wax. kow, waxaa ujeedaan halkan in dhaqaaq xoogani soo dhacay kadibna lacagtu sare correction ugu gashay. correctionka weyne sare waxaa lagu magacaabaa mararka qaar racing wedge. racing wedge-kaasi saaxiibayaal waxa uu gaadhay in uu tago double top. double top-kana shuruuddiisa waxaa ka mid ahaa in lagu tago lugta labaad correction. waxaad ujeedaan in correction lagu tagay lacagta halkan kadibna la sugayay inay soo daadato. waxaynu joognaa waa weekly time frame. waxaa kaloo suuragala saaxiibayaal, lacagtan JPY waa lacag inta badan aada u dhaqaaqda. waxaa suuragala intay in yar halkan soo daadato, ixtiraamto double top-ka, intay in yar ixtiraamto halkan soo daadato, lacagtani ay soo dhammaysato madaxeedan kale ama supportkeedin halkaa kasoo laabato, resistance-kii halkaa ay kasoo laabato kadibna sal soo aado. laakiin boqolkiiba 90 lacagtan waxaan rajeynaynaa marka la joogo weekly time frame-ka in ay sal soo aadi doonto. haddii aynu tagno daily time frame-ka saaxiibayaal, waxa aynu arkaynaa lacagtani in ay samaysay wax kale oo aada u qurux badan oo la mid ah wixii ay soo samaysay weekly time frame. waxaynu arkaynaa inay lacagtani dhaqaaqan xoogan ee hore ee dheer wixii ka dambeeyeyba ay ku jirtay consolidation ama correction, kadibna iminka ay joogto meel aada macquul ah in lacagtan laga soo celiyo oo ay sal kasoo aadi karto. waxaana suuragala sidaan hore u sheegay lacagtu inay cabaar correctionka kusii socoto oo ixtiraami weydo double top-ka sare kadibna ay gaadho halkaas sare ee resistance-ga dabeedna ay soo laabato. marka inay kasoo daadato waa wax suuragala, laakiin waxaad isha ku hayn doontaan oo idinku ka faa'iideysan doontaan eegan lacagtu marka ay marayso. waxaa ka eegan doontaan kanalada laga qaato intriga oo dabcan qofkii wax ugu bilaaban yihiin uu fahmi karo. halkaas haddii ay kuu timaado lacagtu, intri fiican ka baadh kadibna sell garee lacagta haddii uu isticmaalaya risk management. 4 hour-ka haddii ay nimaado sidoo kale saaxiibayaal wax la mid a lacagtu waxaad moodaa in ay halkaa kasoo daadatay, dhaqaaqaas fiican ay soo daadatay kadibna correction yar ku jirto. 1 hour-kana bal aynu fiirino. 1 hour-kana waxaynu arkaynaa lacagtu ilaa hadda in aan jiho loo cayibo aanay lahayn. marka waxay yeeli doontaan isha ku hayn doontaan isbuucyada soo socda. lacagtan faa'iido qurux badan ayaa ka socotaa. haddaad mahadsantahay saaxiibayaal. haddii aad channelkan ku cusub tahay, subscribe inoo saar. aadna wada mahadsantahay. Assalaamu calaykum.